السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان أصحابك كسو دواء جنال كينا ويليها أمدا أو آد كلا سعون دونتان برنامجي واحتر له وحقيقة نتعاونيو مر الله واد كسو دواء برنامج كينا عنو ميعدعني ولا شيء دي سيد غنولان كرتا نلل مانع أو ونكسن ولا شيء دي هكمد نقن لحدا النوع دمر كمد وحان كسو قادنينا طوان كمد لحدا كاس النوع وحان كورا جينيا إن هذا كمد نقنين وصيفي عن أوليسو هدي اسكها شميت كمد جوكسو لحساب النفتاضا كنا نفي هي وإن اسبدشاء aadna barataa sida aad ugu noolaan lahayd nolol lamaane oo farxad leh. kow haweeneyda sheegashada badan taasoo mar walba ninkeeda ugu dacwoonaysa ehelkeeda, saaxiibadeeda, dariskeeda aanan ninkeeda u arkaynin wax khayr ah. labo waa haweeneyda warka badan taasoo aanan afkeeda xiraynin oo ka hadlaysa waxyaabo aanan faa'iido lahayn, aanan arkaynin ninkeeda inuu ku soo daalo shaqadiisa oo u baahan yahay nasasho iyo degnaan. saddex haweeneyda cadaadiska badan taasoo aanan ka seenin wax naxariis ah iyo in ay qalbigeeda ugu dhimriso ninkeeda maadaama uu shaqada ku qabto. iska badaamidaasi waxay leedahay adiga keliya ay ma shaqaysid, ragoo idil way ay shaqeeyaan iyo wixii la mid ah. afar waa midda nimanka iska dhigta taasoo codka dheerka ah leh, hadalkeedu waa nin oo kale, lebiskeedu waa sida ninka oo kale, socodkeeduna waa sida ninka oo kale, waxayba ilowdayba ninkeeda inuu u baahan yahay dumar. shan haweeneyda beenta badan taasoo aanan aqoonin wax run ah oo wax walba ay sheegtaba been uu yahay oo nafteedana ku tilmaamayso inay tahay mid caqli badan maxaa yeelay arrinkeeda cidna ma oga. lix haweeneyda tuugada ah taasoo jaabka ninkeeda wax ka xadaysa ayadoo xujo ka dhiganaysa inuu maalkiisa uu yahay maalkeeda, markuu weydiiyana oo uu sheegayso inay u qaadatay waxyaabaha guriga looga baahan yahay ayadoo hilmaamsan fasaxa inuu yahay intaysan samaynin ka hor oosan ahayn markay samayso kadib. toddobo waa haweeneyda madaxa adag taasoo ay ku taagnaanayso go'aankeeda haddii ay qaldan tahay xitaa. walaashayda qaaliga ahay ogow ninka inuu necab yahay haweeneyda madaxa adag. sideed haweeneyda galad sheegashada badan taasoo ku galad sheeganaysa ninkeeda inay ku saaciday maalkeeda ama jagada aabaheeda iyo guul walba uu gaaray inay ayada sabab u ahayd. sagaal haweeneyda teleefoonka waa mid aanan dhigaynin teleefoonka maalintii oo dhan waxayna ku dhex jirtaa caalamka haweenka. hiblaayo waxay dhahday, hiblaayo waxay samaysay iyo wax la mid ah. toban haweeneyda jaasuuska ah taasoo ku jaasuusaysa ninkeeda wax waliba, baaraysa dharkiisa, teleefoonkiisa, waraaqihiisa iyo sawirkiisa oo dhan. si aad ula socoto qaybta xigta fadlan sabskaraabne gambaleelkana tuuji si aad u noqoto qofka ugu horeeyo. like dheh haddii uu ku cajibgeliyey, lana wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iidaystaan. wixii talo iyo tusaale ahna nagu reebo qaybta hoose ee kommentiyada. inta aan ku kulmi doono qaybta xigta waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo fi amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.